mudane Cumar Salaad Cilmi oo ahaa barisaabkii iyo maayirkii goboladii waqooyi galbeed ee dalkii la isku oran jiray Soomaaliya xukumi jiray sanadadii 1972 ilaa 1980 ee dawladii Maxamed Siyaad Barre oo saaka warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu markii ugu horeysay uu ka hadlay dhibtii ay dawladii kacaanka ahayd ee Siyaad Barre u geysatay shacabkii ku noolaa goboladii waqooyi galbeed mudane Cumar Salaad waxa uu sheegay inuu marxaati cad u yahay isla markaana uu goob joog u ahaa xasuuq iyo gumaad ay dawladii Siyaad Barre u geysatay shacabka reer Somaliland waxaana uu xusay in dhibaatadaas uu adkeysan kari waayay isla markaana uu ka mid noqday jabhadihii mucaaridka ah ee la dagaalamay Maxamed Siyaad Barre ee ay ka mid ahayd SDF iyo SNM waxa uu shacabka reer Soomaaliya ugu baaqay in ay qiraan dhibtii loo geystay reer Somaliland oo aanay dafirin waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay rag uu sheegay in ay saaxiib ahaayeen oo dhawaan warbaahinta ka sheegay in aanay jirin wax dhib ah oo dawladii kacaanka ahayd ee Siyaad Barre ay u geysatay goboladii waqooyi siyaasigan oo sanadkii 2012 isku taagay doorashada xilka madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya waxa uu shacabka Somaliland ugu baaqay in ay nabadgelyadooda ilaashadaan isla markaana ay isku tanaasulaan oo ay ka gudbaan muranada siyaasiga ah dhinaca kalena waxa uu siyaasigan xusay in Somaliland ay gaadho horumar ay haboon tahay in Soomaaliya inteeda kale ay kaga dayato siyaasigan oo arimahan si faahfaahsan uga hadlaya waxa uu yiri maanta waxaan doonayaa halka kan aniga jeclaysteena suxufiyiinta kulano waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrin ay muran ka taagan yahay oo Soomaalida dhexdeeda ku saabsan oo arrinta Somaliland iyo Soomaaliya يعني waxaan kaga hadlayaa inuu siyaasadeeda ka hadlo mahaye waxaan ka hadlayaa waxa koonfurta laga yiraahdaa reer waqooyigu maxay la cabanayaan Soomaalida kulli waa islaysay way isxasuuqday way isburburisay maxaa ku gaara dalbadaas aanu ka jawaabayo waxa ku gaarka dadka Soomaalida maanta nool qaar inta badan dhalinyaro u badan yihiin ma yaqaanin taariikhii la soo maray dadka koonfurtuna ma garanayaan looma sheegi jirin wixii halkan ka dhici jiray oo dawladii Maxamed Siyaad sameyn jirtay military ah marka anigu maadaama ku dhici jiray dawladana kamid ahaa gobolkan markaa barasaabka ahaa qotiyadii dagaalkiisa socday qotiye ka horeysana degmada Hargeysa gudoomiye ka ahaa anigu gobolkii la oran jiray waqooyi galbeed oo Somaliland maantay ahaa gobolkii ugu weynaa xudunta ahaa aad iyo aad baan u garanayaa dadka bulshada taariikhdooda wixii ka dhacayay ilaa 60 markii xorriyadda la qaatay waxaan ahaa 15 jir baan ahaa nin waxaan ahaa ku xiran xisbiyadii siyaasiga xorriyadda doonayay oo Israel la oran jiray dhalinyaradii u adeegi jirtay ciyaalkii ay soo barbarsadeen baan ahaa oo fadhii jirtay muxuu ahaa xarumahoodii meeshooda markii xorriyadda la qaatay waan la socday wixii dhacay iyo wixii ka dambeeyay 60kii markii la israacay dhibaatada gaarka ah oo reer Somaliland tirsadaan baan hadda bilaabaya 60kii markii la israacay oo ay reer waqooyigu markaas British Somaliland Protectorate la oran jiray ay iyagoo socdo xorriyadii keeneen markii xorriyadda qaateen bishii February 1960 ayaa doorasho laga qabtay halka ka baarlamaan tii ugu horeysay baarlamaankii markaa halkan ka dhashay wuxuu ka doodayay bishii March iyo May iyo June inteedii hore wuxuu ka doodayay inuu asdhiso iyo inuu muxuu siyaasad la sameeyaa iyo Soomaaliya raacayna ka doodayay iyo waraan u kaadino waana miniteskoodii waana markii fadhiyadoodii markii doodii saan noqotay xoogaa aan u kaadinayo waan xageena ku istaagno iyo warmayeen waan la socodsiiyay waan tagaynaa waan ku biiraynaa meeshii cadow baan dul taaganahay hawd iyo reserve area xabashi baa la siiyay
ingiriis waa naga hiiliyey commonwealthkiisana ma rabno soomaali baanu ku biiraynaa soomaali baanu iskaashanaynaa dhulalkaygu waa la haystaa wax shuruuda ku xiri mayno na dhaqaajiya waa qaarnimo aan u kaadino marka geed deeble oo meel 30 kilomitir hadda u jirta Hargeysa waqooyigeeda halka Hargeysa biyo uga yimaadaan ayay ku shireen baarlamaankii shacbiga doodooda ogaaba ka daba tagay dhagax baa lagala daalay ka kaca fadhiga oo xamar taga xamar intayna tagina 59kii iyo 60kii bilowgiisii laba wafti baa la isdhaafsaday wafti ka socda Soomaaliland baa xagga xamar tagay wafti kalena xagga yimaadeen waxaa laga ballan qaaday prime ministerka in la siin doono markay meeshii galeen oo dadkii ay yiraahdeen khasab ku geeyeen baarlamaankii baarlamaanka rabana waa jireen inta badan waa rabta runtii in la isku darsado shuruud la'aan war waa isku darku iyo midnimadu waa suuq xeera ku daatay nin walba si xuladu ka leefi doona naga waxba yaana laga hadin hal ubeerka la isku dhigo sheekada cangaas markii labadii baarlamaan la isku daray sharciga abruuf gareeyeen ayaa dawladda la dhisay prime ministerka isaga la sugayeen lama siin halka waxaan uga jeegaa awood qaybsigii uu qaldamay waana lagu mataqaanaa waa looga baxay wixii lagu heshiiyey prime minister lama siin madaxweynaha lama siin labadii taliye ciidan booliiska militariga midna lama siin aduu joogo wasiir iyo shaqaalihii waxaas wax laga siisay markaa way qawadeen waa salugeen waxa kale oo dhacay oo dib weyn ah dawladdii Somaliland Protectorate la oran jiray oo Somaliland la oran jiray markii waa la raray kulligeed waxa la Soomaalida waa la isku daraya dawladdii waa la raray baarlamaankii wasiiradii shaqaalihii dawladda ciidamadii waa la raray waa la isku bedelay kuwa kale loo soo bedelay markii la raray dawladdu waxay ahayd meesha shaqada laga helo oo dhaqaalaha magaalada gala dawladda ahayd kulli markii la raray dadku waa ka daba guuray reerihii ay qabeen xasaskii qaraawadii dad kale oo busaaradaystay magaaladii busaarad baa ka dhacday dhaqaalihii baa dumay Soomaali galbeed Somaliland dadkii cawashii bilaabeen ونسانا نودم بيسي مرقاتشا لوغو دنت waxa loo soo bedelay shaqaalaha askar kale shaqaalaha askarta kale reeroodi waxay ka soo kacdeen koonfur meelaha waxay ka cunaan xoogaa mataqaana ee Garowe iyo maqaad wax ka cunaan wax lacag soo gelin maayaan dhulka lacagtiina xaggaas loo diraa bisaarad baa ka dhacday wixii ugu weynaa dadku ka kacay orda taas waa ka mid ahayd dawladdii ma oran war dadkii dawladda laga soo qaaday dhaqaalihii laga soo ruqsaday bal xoogaa waxa lagu celisho shaqo abuur yaa loo sameeyay waxa markaas arrintii ka carooday niman saraakiil ah oo Somaliland ahaa oo dhowr toban ahaa oo wuxuu hogaaminayay Xasan Keyd la yiraahdo sargaal la yiraahdo ayaa markii dadkii cabashadoodii iyo saamixumadii ka dhacday Muqdisho markii arkeen ayay inqilaab isku dayeen inqilaabku waa ka fashalay taasuna dhacday ahayd 63kii ayaa cabashadii wali taagan oo prime ministeradii Soomaaliya ayaa soo booqan jiray dhulka kan Somaliland la oran jiray markaana waqooyiga Soomaaliya ahayd prime ministerada mid ka mid ah xoogaa uu soo wareego ballan qaadayo mashaariic baa la sameeyaa wiil ruushka uu ka soo keenayo togo jaala ayaa beero badan laga sameeyaa la yiri ruushkii laga soo seexay la soo baa warshad kalluun laga sameeyaa waxbuu ballan qaaday gabilay buu degmad u magacaabay bal xoogaa in la aamuso hadii dhaqaale xumo jirtay xagga laga aamusay iyo qayb xumo 63kii saddex nin oo reer waqooyi ah wadii aan dhaw qabiil sheego waan ka afeefanayaa qabiilka uma jeedo inaan qabyaalad uma jeedo waxaan u jeedaa taariif oo anagu dabaqada maliina isku tilmaano reeraan isku tilmaana
saddex nin oo saaqa oo ku jiray dawladda ayaa iscasishay cabashadii dadka ka yeeraysay oo dadkii intaa ku leeyahay war maxaad u fadhidaan meesha maxamed xaaji ibraahim xigaal iyo axmed xaaji ducaale axmed kayse iyo sheekh cali ismaaciil yacquub saddexdaa nin baa iscasilay cabashadii dadka iyo war in la hagaajiyo dabeed markiiba saddex baa daba martay oo boosaskoodii qaadatay basbaas waxaa la odhan jiray xaaji ibraahim cusmaan iyo ninka la yidhaahdo yuusuf axmed sabantar gaandi waa u malinayaa ismaaciil axmed sabantar oo reer ahaa mataqaana sabantar niman la odhan jiro mutacalimiina ka dhashay ayaa isbedelay saddexdeedii reer saddex nin oo reeraa lagu bedelay midna waxaa u malanaya kii kale inuu ahaa ma hubo inuu ahaa ninkii la yidhaahdo ismaaciil ducaale ma garanayo muxuu ahaa iyo mid waa iskii kale waa iloobay marka arrinteed waxaa laga dhigay halkaasay cabashadii ku joogsatay way iska sii socotay way iska jirtay waxyaabihii ugu weynaa oo halkan ka dhacay oo dhaqaalihii iyo bulshadii wixii hoos u dhacay waxaa ka mid ahaa isbitaalka Hargeysa oo group hospital la oran jiray oo la dhisay mashaariicdii ugu horreysay Ingiriisku ka dhisay 57 ayuu ku jiray isbitaalkaas iskuulle iyo isbitaalkaasi waxaas oo Ingiriisku dhisay markii ugu horreysay mashaariic ka dhisay dhulkan marka isbitaal weyn oo casri ah ahaa isbitaalkaas hoos u dhacay oo wuxuu noqday isbitaaladii kale dadkii Ingiriiska iyo Hindiga iyo wixii ka shaqayn jiray waa ka tageen Soomaaliduna dhaqtar badan ma lahayn waxba ma keenin xagga caafimaadkuna waa dumay isbitaalkaas standardku waxa iga sheekeeyay Umar Hadraawin la oran jiray waa la yiraahdaa dawladda Noordiya u malaynayaa oo reer cadmeed ahaayo SNH ragii markii dambe kor u kiciyay cadanta ka yimid kamid ah ayaa wuxuu yiraahdaa cadan jooga dawladda u shaqeeya ayaa xaaskaygu umulays markii ilmaha in lagu qalan ka cabsanaya wuxuu yiri cadan isbitaalada ugu weyn Ingiriiska ku yaal yiri kan Hargeysa ka doorbiday Hargeysa u soo diyaarad u soo saariyo oo lagu qalay 10 dhakhtar oo kala duwan iyo konton mataqaana kalkaaliye caafimaad ayaa ka shaqeynaya markaas waxay inta waa ka tageen waxay ku dambeeyeen hal dhakhtar oo gobolka ah iyo hal dhakhtar oo mataqaana degmada ah labadaas ku soo hartay kalkaaliyaashina waa yiraahdeen war ma waxa weeye in la horumariyo ay inay dib u dhacdo doodii ragga qoyay ka mid ah oo halkaan ugu imid oo rag badan iga sheekay waxyaabaha gacan bixiyanta oo maamulkii la isku darsaday dawladii la isku darsaday lagu gacan bixiyay ruuqooyiga ahayd waxa ka dambeeyay waxyaabaha xun baa ka dambeeyay dagaalkii Soomaaliya markuu dhacay dawladda Soomaalida dhaqaalaheedu hoos u dhacay uu burburay dawladdu inta wadaag bay ahayd wixii raashina iyo alaabta daruuriga dawladda keeni jirtay wakaalada dawladda qaybin jiray markii dagaalkii laga soo noqday ee dawladdu taageeri jiray Ruushka iyo inta wadaag iyo waa la ciirshay reer galbeedkiina ma iman dawladdu meel cidla ku soo dhacday dhaqaalaheedu waxay weeyay dadkiina quudiso ayay kari weyday raashinkii baa la waayay kii waa loo galay xamar iyo halka kan waxay noqotay ninkii ag jooga lafta kala baxa xamar bay keeni jireen xamar baa xoogaa loo qaybqaybshay kii loo galay Hargeysa iyo gobolka Waqooyiga loo dooran jirana gaajo iyo mujaaca waa ka bilaabatay marka ana jooga waxaan u tagay madaxweynaha marka Maxamed Siyaad waxaan ku yiri Maxamed Siyaad jaal la oran jiray markaas jaal madaxweyne waxa weeye inta wadaagii waa naga tagay inta goosigina nooga imaan dhaqaalaheena dhulku yaala laba hal mid la yeero
ama la soo cesho anti wadaagii waxaan isdiri jiray sida ruushka oo shidaalka oo dhan siin jiray ciidamadana naga hayay shidaalkana raqiis uu nagu siin jiray sal iibsan jiray iyo ama anti wadaagii inta furfurtay wixii reer galbeedkii soo gali meesha ilaa meesha lagu dhimanayaa markaasuu yiri warniyow waxaas hadda ma samayn karo markaa warqad baan u qoray waxaan idhi gobolkii aan joogay anaa layga rabaa mas-uuliyaddiisee wax la cuno iyo wax alaaba iyo macnaha u yeenayo badeecad u keenaye iyo galow adigu waayahay buu yidhi waxaan isugu yeeray dadkii oo gaajo u dhintay ganacsatadii ariga dhoofin jirtay oo xoogaa lacagta qaar halkaa kula harta dowladda ka qarisa iyo shaqaalo badan oo reer waqooyi ah oo carabaha joogay oo lacagtooda meel dhigan jiro aan radan ku aaminayn waxayna halkaa tago waxay yeeshaan isu tago maraakiib soo rara cunto lacagtiina soo gelisaan badeecado raashin dhar alaab dhismo wixii la mida soo rara oo maxaadna siinaysaa waxaan siinayaa faa'iida idin saaraya hay'adaha dowladana lagu wareejinaya adinkana faa'iidada intaas ka helaysaan ayaguna dadka waxay uga gadayaan dowladdu khidmadii way qaadanaysaa intii hore lagu gadi jiray wixii dowladda in ka yar yaa shacbigu ku helaya qofkii musuqmaasuq aan ku arkana waa xabsi buu mutaysanaya hay'adihii dowladda iyo laamihii iyo wixii ganacsatadii wixii waa la soo rogay Hargeysa waxay noqotay Dubai yari waa loo baxshay Abu Dhabi yar wax walba koonfur baa markaas u qulwashay badeecadii iyo wixii nin waxa ii yimid World Bank Vice President-ka wana waxa ka dhaqaalaha ka baratay wiil waxaan wasaaradda maaliyadda mar baan ka shaqeyn jiray oo ka bowsan jiray wax waxaan dhaqaale iyo kaliya maana waa qofka hadduu maskax leeyahay dad gaajoonaya in wax loo keeno ma dhaqaale ku xiranta caqli caadiya maaha weli waxay yidhi wax fiican baa samaysay intii kale Soomaaliya waa laga baktinaya waxaa laygu qoonsaday markaas wixii aan keenayo oo la yidhi wadaagii uu burburshay dowladda waxa keeni jirtay dowladda ma keeni karto guddi waa la soo diray waxaa la yidhi ninkaan la baaro Hargeysa iga kaxaysteen waxay geeyeen berbera State House halkaa waxaa la yidhi aanu mataqaanaa aanu kula xisaabtanna wixii markaan u akhriyey yaa walaal dhageysta waxay ku muduciyaa kuwii ganacsiga iyo kuwii baaranka iyo waxaa mar laaluush ku qaadan jiray dadkan ka qaadan jiray waxaan idhi dowladdii waa faa'iid oo 50 milyan baa berbera soo geli jirtay maantana 350 milyan baa soo gashay وحقيقة دولة وافايد عشورتي تذكينا وافايد وام حي وعلى لو شغلتنا مشيران مركب ولا قبل واحد عرفت المركب هذا هو يقول راعين مركب قدي كلا صادر ولا نكاس وين شغله كسوق قبتها أنا وجه هذا ماشي وساق برواقه ولا يدين واي ومدحدي محمد زياد كوتيزي يوحي أوردر مدمر إلى سؤال نفط أنا مركب أنا ماشي عليك كحي waxaan usaday waxay u dhacay mataqaanaa urda la'aan iyo dhibaato anna inta waxa la bal iska dadaalo dagaalkiina waa soo galnay waxa lagu soo bedelay nin la yiraahdo magaciisa ma xasuustay nin baa lagu soo bedelay oo la keenay ninkii wixii waa joojiyay dadka xabashay bilaabeen waxaana gobolkii la keenay waxaa la keenay niman askara oo soocan oo reer gaar oo dadkaanu ka cabanayay ahaa yaa gobolkii iyo degmooyinka lagu taxay mar baan fasax u imid oo sheekh yimid waxaa ii yimid dad 70 qof aan tiriyey markaan tiriyey koox ii imaanaysay oo dadkan reer waqooyiga gobolka waqooyiga laga tirsan odayaal dadan aqaan saraakiil wax kale culum war maxaa rabtaan war waxa la waa dhiman ma noolin maxaa idin ku dhacay horta wixii waan la ka joojiyay cuntadii iyo wixii adduunkii waa koow
midda kale nimanna cunaya oo na dilaya oo na caburinaya ayaa meel wala loo dhiibo oo laaluush qaadanaya oo dadka qasbaya oo xiraya oo xun yahow najaas yahow gacantiid yahow waxaas wada leh yaa loo dhiibay degmooyinkii gobolka ka koobnaa oo boorama gabiley berbera hargeysa saylac war naf kuma noolin barasaabkiina waa noo duleedinaya kuwa hoosaran waana cuneen waa dagaalamaynaa markaasaano maxaa ku dagaalamaysaan wadinka waxba haystaba haddaad dagaalantaan waa un laydin marinaya waa la-aanaysaane maxaad samaynaysaa waa frustration waxa weeye waa dhib dadka haysa marka waxaa lagu dhawaaqay oyaantaas 80kii iyo kowdii bilowgeeda SNM baa lagu dhawaaqay waxaan soo SNM samayna dhageysanaha war markay timaado xataa iska sugto hadda waa laydin leenayaa waayahay waa leeyahay saraakiil baa ii timid maxamed gacankaan ku jiro oo saraakiisha waa la maagi jiray oo waa la socday markaasi waniyo ma noolin waa dagaalamayna sidoo kale aan ku yidhi war jooga u kaadsha dadku markaa meel xun bay ka maraysay cadaadisku wuxuu keenay in ufa soo baxdo qoladii dhallinyaradii dhagaxtuurka inuu dhaco in rag laysku xirxiro inta la keeno niman naxariislayaala dadku layska laayo ganacsatada kooxo laysku xiro la laayo burcii hargeysa dadkii mataqaan dhallinyaradii la laayey xabsiya laga buuxshay wixii oday iyo maamulada ku jira raggii mandheero lagu shubay iyo meelka cadaadisku waa batay ha laga neefiyaba ma jirto sidii loo garaacayay SNMT waa ku wada galay SNMTina waa tii soo duushay anigu markaa meelaha mucaaradkan joogaayo SSDF iyo SNM iyo labadooda ka mid baanahay oo waxaan leeyahay walaa laysku soo jiido inay midoobaan marka waxaan imid meesha la yidhaahdo qaxootiga halkuu degay reer Hargeysa markii la burburiyey oo taangiyada iyo madaafiicda goobta iyo diyaaradaha la isugu daray oo la xasuuqay oo magaaladii la dumiyey 70% dhulka la dhigay oo dadkii yaacay oo diyaarada jidka ku duqeeyeen oo ay soo dhoobteen banki xarshin xaaradii cadowgaan ahayn xariya looga oodo ay miciin moodeen oo xaaradii tiri fariista qoshbal meel ban ah oo aan geed lahayn teendhooyin looga dhisay halkaa heedo caalami u yimaadeen meeshii aan soo booqday dulcad iyo harta shiikha iyo meelo la oran jiray boqolaal kun oo dad uu ku jiro dadkii baan 3 maalmood ku wareegay dadku markaan qoys iyo laba u galaba midun bay garanay war Umarow warsaana noo dambeysay war dawladdiinii ma naga qabataan anigu markaa dawladdu kuma jiro xagaasan jooga war dawlad anu mucaarad baan ahay walle baga war ma nafku ma noolin waana baabashi dhulkii la baabiyey halkaana dadku waxaa la siiyaa qamadi iyo silid caday shuban baa ku wada dhacay habeenkii qorrax habeenkii waa qabow xunba raasu leedahay waxay ka wadaan malaha maalintii waa qorrax kul oo teendho qorraxda soo deynaysa ku nooli dhulka xabashidu waa tagfi waxa la yidhahdo iyo kutaan dadku waa iswada xoog hayaan waa cambaarooben qolaan xididnaayo meesha deganay baan reerkiina u tegey qolo walba dadka oo dhan waa u fiirsado saasay isu xoog hayaan wada cadhoobeen aad iyo aad baan calool xumo uga qaaday halkaa qofkii arkaa iyo dadkaas sida loo galay ma yidhaahdeen maxaa lagu sameeyo gaara dadka wax gaara lagu sameeyo xun xasuuq dawladoodu ku samaysay sida cadowgii loo dilay dadku mucaarad waa noqdaan meelo badan baa mucaarad noqday Soomaaliya sidaa meel loo galay lagu baabashay ma jirin oo dawladdu baabiisay markii 91kii la soo galay ayaan soo galay waxaanu magaalada Hargeysa
يعني نحمر يعني أنا قنشري دانتاس كونفورتا أو عرب كي يجرحجس كي يدقان كل وقت وسنت قال اللي بقى يروح الأورنج هالك كان إلى أنت سعد موسى أي دقناين يان صومر أيانا دول كي تهلا كوريا دولة دول هايد شعب الأورنج يكون من التريقة هالكوريا أو المدينة اللي يروح ميل تاجن أيها كنول magaalada marka waxa ay waxaanu ma dawladdu waa jabisay mase wax kale ku dhacay waxa la badankood dawladda jabisay intii kalena waxa fuqsaday niman jabhadaha oo Soomaali galbeed iyo Oromo iyo la oran jiray oo ciidamadu ay halkan ku haysan jireen ciidamada meesha ku haray ayaa magaalada jabsatay oo qaadatay oo daaqadihii iyo saqafkii iyo albaabadii iyo maarmarkii iyo wixii kala baxday wixii gudaha yaallay waa la dhoofiyay Ethiopia Soomaaliya yaa loo kala dhoofiyay jigjiga waan soo sheekay dhaafay waxaan ku arkay meel leeg hotelkan weyn barxadiisa oo kala la baneeyay banaan weyn oo suuqa alaabtii Hargeysa waran oo aan shay ka maqnay sariirihii baa yaalla firaashadii baa yaalla kuraastii baa taalla waxa yaalla maacuuntii ama wixiyadii baa taalla dabaqaadiyada yararka oo unsiga ma aragteen oo malaha aan sariir show talon 100 kun ba masoo konton waxaan tiradu yaa saa u safan waxa yaalla mashiinadii iskuulka technical school oran jiray ingiriisku keenay 57 oo najaarada iyo toornada nin oran jiray Daawud Maxamed Geelay la socday oo reer Hargeysa markaasuu yaa Allah waa mashiinada lagu tababaray kan waa number kaas hebel waa qana kan numberkiisa waa hebel waa ay qana waxa ka soo foqsan gawar kale oo la socday waqooyi ayaa waxay samaysay sariirteeda aqootay intay ku wareegtay sariirteeda bir la dhacday qaw xarigto tawrkaas marka unsiga way la gashay ul ku burbursi war waxaan yiri waa iska waalatay umar dilacda iska daayo waxaad waxa weeye dadka wixii ku dhacay cid lagu sameeyay ma jirto waxa ay mataqaanaa Soomaalidu qiran weyday hadaan Soomaalida koonfurnaay iyo dawladaha mataqaanaa xagga ka jira oo xaggaas gobolada inaas koonfureed waxa ay ogeyn ama ay qiran laayihiin waxaas weeye waxa farqiga ku jiraan Soomaalida isdishay iyo Soomaalida la dilay waa farqigaas weeye inta waxaan u cadeynayaa waa jira meel la dilay oo sida nugaal iyo mudug oo mar dawladdu xoogaa intay SSDF noqdeen barkada iyo laga jajabiyo dad laga xirxiray waa jireen magaalada gaalkacyo koonfurteeda oo yana jawaad noqotay la burburiyay oo 84 oday oo madax ahayd maalin la dilay waxa dawladdu dishay waa jireen laakiin dadka sida gaarka loo dilay waa dadkan burco aanu ma tagin laakiin waxa la yiraahdaa si xun baa loo burburshay ama loo dilay Hargeysa waxa laga xukumo oo ka jira galbeed tuulooyinka oo dhan Faraweyne hadii la ka balgoolle Gumar hadii la ku ranbalac bane wada Bariis muxuu ahaa wada Makaahil sayla weyn sayla yar dhulka galbeedka ka jira waa soo maray waa la burburshayadana dadka dhulka laga qaxayna ahay marka waxa weeye xasuuska waxa aan ka hadlayo wax fiican ma ahan oo laakiin waxaan u jeedayaa horta dadkan Somaliland waxyaabaha sii fogeeyay oo ay la goosteen gacan bidixintii jirtay ilaa 60-aadkii iyo taasoo loogu daray horta weeye waa in loo ogaadaa sidaana waa in loo qadariyaa markii hadal iyo wax laga hadlayo aan la inkirin la oran maxay ku dhacay maxay wada حتى مركي دولتي محمد سياد dhacday نعم بقى حاول انت استاجا waxay yiraahdeen Ali Mahdi guddiga manifesto waxay yiraahdeen dadka hubka siday oo sanamiyo jawaadihi iyo hubka hadhigeen akala tageen war ma oran war madii la burburshay jawadeedii u yeera ayaguna ku tashado burco fariisto goostay marka yaa kala gooyay
goynta waxay ku lahaayeen koonfurta raggii siyaasiyiinta waagaa joogay dhibkaanuna waa u dheeraa oo markii hore ay la xanuunsanayeen marka waxa weeye waa in Soomaalidu isu qirtaa la isu qiraa wixii dhibaato dhacay wixii wanaag dhacay intaas waxaan uga baxayaa farqiga u dhaxeeya Soomaalidii isdishay iyo Soomaalidii la dilay markii dawladdaadu ku disho yaa wax gaar ah weeye marka Soomaalidu isdishana xataa islaayeen rogoy islaayeen jawada isku maleeshiya isku laayeen cidna ma haystaan koonfurta ayadaas dhomaystay cidna ma haystaan dadkii halkan laga dilay markii Hargeysa la duqeynayay African Human Rights Watch waxay ku qiyaastay 50,000 ay ku qiyaastay xamar meel lagu dilay 200 qof maxaa siyaad ku dilay kuma jirto iyo koonfurta marka yani sidaasay wuxuu kala cad yihiin haddaanu Soomaalinahay waa inaan saa u garanaa nimanka dadka inkirayaana waa inay qiraan markaa ka bacdi wixii la sameeyaa la sameeyo iyo sidii la wada hadli karo iyo hadii wax la isku darsan karo iyo laakiin marka hore waa inaad u qirtaa dadka dhibaatada ku dhacday waa inaad u qirtaa waa inaad madaxa ka garowdaa waa in muxuu ahaa wixii wax laga sameeyo oo magaalada dadkii saa loo burburshay waxaan maanta joogaa magaalada Hargeysa 170 burburiyay waana qoon waay meel walba xamar dhinac kale u koraa badii waxa ka jirta Hargeysa waxay u kortay dhinac walba intaas oo mayl 5 maylka ayaa la oran jiray airportka 5 maylka waa dhaaftay xaggaas iyo naasaha loo 5 mayl bay u dhaaftay 5 mayl waxay u dhaaftay xaggaas iyo wadada berbera xaggaas iyo wadada Gabiley iyo Arabsiyo 5 mayl bay u dhaaftay dhankaas iyo buurtiina naxar iyo xaggaas iyo xaraf yaro inta kale u dhaaftay waxa weeye waxay noqotay magaalo waxaan isir talo xamar ku dhowdhada walaagta ayaan isir haddana waxaan arkay inay ka wada dawaqyo badan tahay xamar ka dawaqyo badan nus dawaqyada ku yaala Hargeysa xamar nus way noqonaya marka dadka Soomaalidu waxa weeye waa dad ajaa'ib leh waa dad karti badan kaligood ma ahan halka kan kaliya ma ahan boorama iyo mataqaana Gabiley iyo Wajaale iyo Berbere iyo Burca iyo saas oo kale loo dhisay lagu yiri waqti waan haysana waa tagilaa xaggaas iyo boosaasan soo maray iyo Garowe iyo Qarne iyo sidaas kale u dhisanta xamar oo dagaalkii ku raagtay oo ayaan dhawey dhisan bilowday mooyaane koonfurtu ma dhisna dagaal baa inta ku socday nabadana wax lagu dhisaa nabad baa hesheen hadda reer Soomaaliland tiin nabadiina xagsada khilaafkana iska ilaaliya khilaafka waxa weeye wuxuu keenaa gacan ka hadal Soomaali baan nahay waxa soo uga fiicantiin koonfurta waxa leedahay mustambeedyo madasha akademiyada odayaasha guurtida waxunbaa soo baxay markii la isqabto oo dawladda mucaaradku isqabto aad bay u fiican tahay waad uga fiicantiin wadda koonfurta annaga koonfurta labadayna hadda isku soo baxsatay cid kale celinaysa lama arko gacmo isla gaaraya markaan xabad baa la isla dhaxay marka khilaafku waxa laga hortagaa intuusan gacan noqon compromise dawladdu inay iyadu hogaamiso oo markii laga cawdo ay waxa caawanaya la fariisato ayaa loo baahan yahay shacbiguna inuu nabad iyo barwaaqada ilaashado waxa aan la doonayo la heli maayo shaqo la'aan baa jirta dhalinyaro waxaa jirta kumanaal kuna oo iskuuladii iyo jaamacadda ka soo baxayso xaggana Soomaaliya waa jirta tanna waa jirta labadu waa shaqo ma siin karaan meel loo geeli karo lama arko dhaqaalihi waa kooban yahay marka maxaa shaqo loo siin waayay maxaa shaqo loo siin waayay hadda shaqo lagu heli maayo waxaa loo sameyn waayay Afrikaan baano perfect noqon bayno waxba wada hagaajin karno marka hal dul qaato isjiita iswata khilaafka xalliya runta isu sheega way wanaagsan tahay waxaas oo dhan laakiin sayidin ka burburin nabad waxa haysta Soomaaliya taama adinka iyo Puntland baa jirta meesha galmudug xoogaa inkastoo ay qulqulada yar yar oo dhex galaan galmudugtaas nabad baa ka jirta inkastoo qaar laga haysto oo qaar ay
qolo dhalinyaro oo maxaarad u fadhido iyana nabad baa ka jirta koonfur inteeda kale nabad kama jirto nabadda halkaa ka jirta oo hadda dadku ku soo yirooba dad badan oo Soomaaliya halkaa degan waa u baahan ogahay haysta reer Somaliland waxa kororso wax beel bay leedahay Soomaalidu waxa aanu mutaqan badan oo kordhin karnaa ma jirto dhaqaalaheena xun ilaa maxadinta iyo shidaalka la soo saaro ilaa xoolaha iyo beeraha iyo badda maalgelinta aanu badino shaqo abuur la heli maayo in halkaa loo badshaa fiican wax soo saarkii wixii dhulkii la aado dhulkaa wax ka soo baxaan daar baa la iska dhisayaa daartaan la dhiso lacagteeda in la geliyo beeraha iyo dhulkii xoolaha iyo kalluunka yaa fiicnaan lahayd daarta lacagta gasho waxa la yiraahdaa raasamaal dhintay baa la yiraahdaa dead capital baa la yiraahdaa adduunka wixii daar gala ma soo noqonaya mana wareegayaan lacagtu wareegi mayso dadkii gaari mayso lacagta daaraha ku jirta iyo mataqaana dawaqyada ku jirta shaqo abuur bay Soomaaliya hadii la geliyo wax soo saarka marka policy baa loo baahan yahay dawladda hogaamiso dadku ganacsatada ruuxoodu ay lacagtooda waxay ugu badinaysaa ayagoo meel kale lacagta geliya kiradii ka heli maayaan daaraha baliniska ay geliyeen marka hadalku waa badshay waxaan ku soo goynayaa aad iyo aad waa Soomaaliland waa baleenayaa nabadda iyo horumarka ay haysato Soomaalida kale Soomaalida naasna oo ducaynay waxaan la ilaahay naga saaro qulqulada iyo dagaalka aanu ku dayano Soomaaliland nabadda ay samaysatay ay gaartay dimuqraadiyad inay isdoorato annaguna aan leenahay wali 4.5 nin qabiilku soo xulanay hebel alla isku qabsado alla kala iibsado yani waxa qashina ayaa siyaasadeena ku dhex jira wareer koonfuro wareer Soomaaliyo waxayna hagaagsan markaan hagaagsano Soomaaliland halkaan ay joogtahay waan soo nimaan oo markaan sideenoo kala xageena ku istaagno arintu waa sahlanaysa in la wada hadlo laakiin annagoo sidaas afnuguma yaalo aan cid la hadalna iyo waxaan ku hadalna anagu dad badan baa halkaan la hadlay ama la hadli jiray waxaan u yiraahdaa war meesha aad xaqiiqaysaa ma nin baa dab isku tuuraya horta marka hore damiya oo markay danto oo aad meel israacadaan dee Soomaaliland oo wada hadli karnaa waa subahannahay taasaan leeyahay anigu waxaan qabaa anigu midnimada Soomaalida waan qabaa laakiin sidaan hadda wax yihiin anaa wax hagaajino mooyaane wax isku raaci maayaan waxa weeye ana koonfurteennii ma israacsanayn oo meelo kala taagtaagan koonfurta aan israacino inuu qoyo aduna kama wadanisana ee koonfurta waxay yiraahdaan nimanku wadaniin waa goosteen anigu waxaan ku yiraahdaa oo dhaba oo qalbigayga ka imaanaysa oo aan lagaasi sheeg ahayn ayaga idinka wadanisan baan ku array qoyga idinka wadanisan xorriyadda markii loo dagaalamayo boqolkii 70 heesaha wadaniga Soomaaliya laan jirto la tiriyo ayaga tiriyay shucuur bay leeyihiin waxna waa diidaan waxna waa xumaantana waa diidaan wanaagana waa ogolaadaan dadkeena koonfurtu waa dad wanaagsan oo Soomaalidu kulligeed dad wanaagsan weeye laakiin shucuurtooda kala ma laha waxay diidan yihiin iyo waxay ogolaanayaan garan mis koonfurta meelo kamid ah wax laga yiraahdo waxna sheegin waxa sheegtina waay كروغي وما يقان وحص الرئيس ولا وصراحة fiican وصومالنimadu maxay kala tahay waa suugaanta waa afka waa waxa weeye hadaa intaas aan u taqaanid Soomaalinimadu iyada intaas waa lagu yahay af Soomaaliga iyo suugaanta iyo ma taqaana muxuu ahaa waa lagu yahay waan anaga koonfur waan naga baabaysa marka Soomaalinimadu yahay way أنا حالة سوينا سؤال عايزه هرنا وين جريت سوالنمدي أنا غيرنا أنه متقنا وحوي هاكسنو أنه ساقاتشنو هدانو نايرير سوماليا ورك غير ما ورجينا يدو حين يدك سوماليلان إلهي نوداس هايستان متقنا أو حوتشيو إلهي سوماليا ودن متقنا لو أتضع كسارو إلهي سوماليا قلبي قداس كسودمو هذه أدوى ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أسأل أنا واحد يسترجع هذا هي الرماح كهذا واحد يست.
marka anigu horta lama qabo xoog horta wax la yiraahdo oo la isku muqoonin karaa ma jiro dowladda maxamed siyaad dowlad ka ciidan badnayd oo ka xoog badnayd ma jirto haddana ma jirto mana imaan doonto marka halka hadal iska mataqaanaa waxba ka jirin ka soo qaad nimankaas siyaasadda ma garan qaar baa saaxiibadaya anugu inaan saas ugu tiigaalo ma rabo saaxiibaan ahaan jirnay ragga qaarkiis laakiin aragtidaas waa aragti qaldan baan leeyahay in ciidan wax lagu muquuniyo iyo markii hore in lagu muquuniyo khalad bay ahayd haddana ciidan lagu muquuniyo khalad weeye nin inuu ku hadlaa mana dhacayso ciidan laisku muquuniyo waxa weeye yaad ciidanka ugu muquuninaysa ma ninaad la hadli weyday oo walaalkaa af garan weyday miyaad dilaysaa isna waa ku dilaya wixii hore oo dhaco baa dhacaya wax kale ka soo bixi maaya cumar salaad cilmi 1973 ilaa 1980 ayaad halkan joogtay Soomaaliland maraad maayar ahayd iyo maraad barasaab ahaydba waqtigaasi mushkiladda badankeedu muu bilaabmin laakiin waxyaabo badan oo soo horreeyay baa jira tusaale ahaan markii laga soo noqday dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya waxaa dhulkan la soo dejiyay dad fara badan oo qaxootiya oo la dejiyay meelihii istiraatiijiga ahaa ee biyaha lahaa ee ku yaalay dhulka Soomaaliland Sabacad Agabar Ari Cadeeye dhul fara badan oo kale boqolkiiba 80 dadka Soomaaliland waxay aaminsanayeen in sababta loo dejinayo ay tahay barakicin in lagu barakiyo dadka dhulka ku nool in maadaama adigu waqtiga aad ahayd barasaabka gobolka ku kulay sidoo darasada darinta anigu waa joogay markii la soo dejinayay laakiin uma qaadan in lagu barakicinayo sababtoo ah dhulkan waa dhul Soomaaliyeed Soomaaliya Itoobiya ka soo barakacday ayaa dhulkan la dejiyay koonfurtana waa la dejiyay dadka ugu badan koonfurta la dejiyay xiriyaha ka sheekeynaysid Agabar iyo haddii ilaahay ku rooyay Sabacad iyo meel Hargeysa dusheeda meel agteeda meel maxasuusin wax soo mar soo dejiyay marka laakiin mar dambe waxaa caddaatay markii laga saaray dadkii u dhashay dhulkan gobolkii la oran jiray waqooyi galbeed markii dhulka u dhashay laga buruusho laga xasuuqo laga saaray ayagii waa ku haray jabhada Soomaali galbeeda oo Absame iyo Hawiye iyo Oromo ayaa u harayba marka waxaa oran jiray markaan soo arkay dadka xaggaas ahaa war dhulkii dadkii kale miyaa la siinaya talow mase dadkii laga kaxeeye oo meel beera ah oo xayawaan lagu dhaqdaa laga dhiganaya dhulkii waxa weeye dadka ummadii laga rariyey markaasay caddaatay ayay u ekaatay in ayaga looga dan lahaa in meesha la dejiyo markii mataqaana ay kaligood ku hareen laakiin marka hore waxay ahayd dhul Soomaaliyeed oo loo yimid degaan qorshahaas aanu ma jirin baan u malaynaya waa sax sanadkii 2012 waxaad ka mid ahayd musharaxiintii jagada madaxweynenimo ee Soomaaliya doorashadii guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud waad weeyday sababahaad ku weyday maxaad u nisbeynaysaa hankaasu sama ka baxay imika kursiga horta sababihii aan u waayay waxaa ka mid ahaa horta anigu ma aaminsan inaan helayo laakiin waxaan rabaa codkayga meeshan ka sheego waxaana iga baxay aqoon waxaan ogeyn baa iga baxay ama gadaalba ka dhashay oo markaa bilowday waxa weeye doorasho ma jirtee waa la gadanayay bobooska 10,000 iyo 20,000 iyo yaa la siinayay codka anigu baarlamaanka hor istaago waxaa yidhi anigu lacag ma hayo haddaan hayana idinma siiyeen waayo jagada tan amaana anigu inaan ma gadanaya anigu mali jagada Soomaali waan ugu adeegay adinka baarlamaanka ayaan daryeelkiina iyo ummadda daryeelkeeda iyo ummadda horumarinteeda ayaan uga shaqaynayaa haddaan lacag hayn lahaa ama aan mataqaana wax qabto marka lacag bixin maayo ogaada markiiba waa laga jeesanayaa lacagta waa la bixishay 2 nin baa soo siisay labadan wuxuu ahaa
cabdi xaashi cabdilaahi ninkan aqalka sare madaxda u ah oo dhallinyaradii raggii la shaqayn jiray xisbiga ka mid ahaa oo nin wanaagsana aan laaluushka qaadan iyo nin kaloo aan laaluushka qaadan labadaa nin baan laaluushka qaadan inta kale laaluush bay qaadanayeen marka hankiina waa iga baxay oo waxaan ogaaday inay iib tahay oo hadda doorashooyin ka dambeeyana waa la iibshay tan soo socotana waa iib waa xaraash marka hankaas waa iga baxay kuma jiro lacag ma hayo wax ku xaraasho wax ku gato waxaan isaga jeestay arrimo samafal gobolka mudug la yiraahdo ayaan 10 sano ku dhawaad iskuulo in laga sameeyo wado in laga dhado wadaan dhisaa hooyayga ay u dhaxaysa 260 kilomitir iska qabsan ku dhisaa halkaas aan ku faraxsanahay dad wada ku xiran tahay oo ay deked ugu sokayso Boosaaso 750 kilomitir hooyo markaa joogtana 110 kilomitir weey ayaa mataqaana dadkaas xoolahooda ka soo kaxiyaan xoolaha ugu badan oo idaha la yiraahdana xeedaxdaas hooyay joogan qofka ugu yar wuxuu leeyahay 1000 neef 3000 2 qaar 4000 كل يوم بقول بالله لوجيسيا داد كذا مرة واحد يصير سو دكتب إليه رير سبوندلاند وأنا ما سوى عليها واستاهلان أنا عايشان وتكذا يشان لكن كوانا هاي دكتب يلون وين يوضو الكاستان كشقي هذا وكفر حسناي بعدي أنشوجا مدحوينا كسا أيضا كتشعلها وهي دان وأنت مدحوينها وحام مدحوينها شو كشيران بنكشير لا دواتا ما أنت نسوي مدحوه كم تشيروا ما تغنى كم تشيروا نبغى كشيرة كوا دجال كوس على كوا سيف درم مركا دورشين هذا وصعده نشعب ونسقى هرمركا ينوضي وحاجة شقية عبد الرحيم مولى إسماعيل شبكة دورة كيليس نيوز مقالة هرجيزة.